madaxa gobolka isduuha gobolka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska madaxda ka socota xaruntii qaranka ee caasimadda agaasimaha waaxda shaqaalaha ururada shaqaalaha ee halkan fadhiya shaqaalaha kale iyo dhalinyarada iyo haweenkaba dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii maanta annaga farxad bay noo tahay iyo fursad weyn runtii waxaan isugu nimid waxa weeye saa la sheegay la tashi aynu ka yeelanayno xeer waddankeena ku cusub oo la yidhaahdo xeerka ururada shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha lagama hadlayo hadda qof shaqaale ah iyo qof loo shaqeeyaa waxaa laga hadlayaa ururada shaqaalaha ururo midaynaya shaqaalaha iyo ururo midaynaya loo shaqeeyayaasha kala duwan ee dalkeena xeerkani markaa wuxuu ku aadan yahay waa xeerkii lagu maamulayo ururada kala duwan ee shaqaalaha ee aynu hadda ka hadlayno ujeeddooyin runtii fara badanna qarankeena waynu ka leenahay sababta koowaadaan ugu xulannay in gobolka saaxil lagu bilaabo la tashiga koowaad maxay tahay waxay tahay gobolka saaxil waa gobol inta u badan dhalinyartu runtii ay shaqeeyaan ee fursado shaqo ay haystaan bulshadu sidoo kale gobollada kale waxa uu kaga horreeyaa dhinaca is-abaabulka ururada shaqaalaha aad iyo aad buu runtii uga horreeyaa waa gobol shaqaalihiisu ay midaysan yihiin shaqaalihiisu ay xuquuqdooda iyo xaqooda iyagoo mida oo cududa ay runtii wada doonaan mar haddii baraaruga intaan le gobolkan uu jiro wasaaraddu waxay door bidda markaa in la tashigii koowaad ee xeerkan in laga bilaabo gobolka saaxil haddii aan la yidhaahdo caasimaddiisa magaalada berbera haddaba xeerkan aynu ka hadlayno ee la yidhaahdo xeerka ururada shaqaalaha iyo loo shaqeeyuhu ugu horreyn wuxuu sharciyeynayaa in dalku uu yeelan karo ururo shaqaale oo is-abaabulaya iyo sidoo kale inuu yeelan karo dalku ururo loo shaqeeye oo loo shaqeeyayaasha kala duwan ee isku mihnadda ahiba ay urur yeelan karaan tusaale ahaan oo kale waxaa xagga shaqaalaha samaysmi kara ururka shaqaalaha ka shaqeeya hudheellada dhinaca loo shaqeeyaha waxaa samaysmi kara ururka loo shaqeeyaha dadka hudheellada leh ayaa is abaabuli karaa mar haddii saa la isku abaabuli karo markaa xeer in la helaa muhiim bay runtii noqotay xeerkan markaa ujeeddada koowaad wuxuu sharciyeynayaa ururadaa kala duwani inay dalka ka samaysmi karaan waxaa kaloo suuro gelinayaa in la abaabulo maadaama dawladdu aanay xaq u lahayn ururo inay samayso laakiin doodaha xagga abaabulka in la is abaabuli karo oo dadku ay ururo isku abaabuli karaan in la jideeyana xeerkan runtii waa ujeeddooyinka laga leeyahay waxaa sidoo kale laga leeyahay in la abuuro jawi is-afgarad oo u dhexeeya shaqaalaha kala duwan ururada shaqaalaha iyo ururada loo shaqeeyaha jawigaa is-afgarad ee markaa la abuurayo waxaa u dhexaynayaa markaa ururadii loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha inuu sharcigani nidaamkii is-afgarad looga abuurayay ayuu isaguna runtii xeerkani markaa inoo jideynayaa waxaa kaloo xeerkani uu ka hadlayaa oo uu dhiiri gelinayaa in kor loo qaado xaaladaha shaqaalaha kala duwan ee dalkeenu ee ay ku shaqeeyaan wuxuu dhiiri gelinayaa markaa in ururada faraha badan aynu ka sheekaynayno in la abuuro qodobka 23 dastuurka jamhuuriyadda somalilan ayaa inoo oggolaanaya in bulshadu ay is-abaabuli karto oo isku abaabuli karto markaa inay ururo shaqaale ay samaysato xeerkanna markaa wuxuu hirgelinayaa ururada shaqaalaha ee qodobka 23 ee dastuurka uu inoo jideeyey in iyadana markaa dee la hirgeliya haddii aan la yidhaahdo waxaa markaa inagu soo biiray barasaabkii gobolka iyo maayirkii degmada oo labadaba runtii furitaankan xeerkeenan iyo watashigan qayb ka noqon doono oo inala furi doono haddii aan la yidhaahdo mudana guddoomiye iyo maayir wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxay gobolka saaxil usoo xulatay in xeerkii ururada shaqaalaha rayidka ururada shaqaalaha waa ururada shaqaalaha ee mihnadlayaasha kala duwan markay midoobaan